ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 9ka bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee halkan aan idinku soo gudbin doonana daawadayaal waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay xafiiska shirkadda DEG ee ku yaala gudaha dekedda Bosaso iyo xaalad halis oo ka soo cusboonaatay Puntland kadib xilka qaadistii gudoomiye Doobo Jubbaland oo markii ugu horeysay ka hadashay ciidamada beled xawe ee u goosay dawladda federaalka iyo ciidan taabacsan farmaajo oo la wareegay guud ahaan gobolka Gedo xisbiga Muqtaar Rooboow oo banaanbax dhigay iyo dalab cajiib ay u direen dawladda federaalka Maraykanka oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yaray amiirka al-shabaab iyo muuqaalkii laga baahiyay dagaalkii Balidogle iyo xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya basaasiinta FBI-du raadinaysa iyo bin Salman intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay dagaal ayaa xalay waxa uu ka dhacay xafiiska shirkadda DEG ay ku leedahay dekedda magaalada Bosaso ee gobolka Bari sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka ee gobolkaasi dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba ciidan oo ka kala tirsan maamulka Puntland lamana oga sababta keentay inay dagaalamaan faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaya iyadoo saakin ay ciidamada aad u fara badan oo kuwa Puntland ka tirsan ay isku gadaameen xafiiska shirkadda DEG ee ku dhexyaala gudaha dekedda magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari lama oga sababta ka dambaysa dagaalkaasi waxa keenay balse arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan Puntland taas oo ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyay gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed kaas oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool Sanaag iyo Caan halkaas oo banaanbaxyo waaweyn laga dhigay oo lagaga soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay Puntland ayaa u muuqatay inay xiisad dagaal gudaha la gashay kadib 20 sano oo ay cagaha u taagneed madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa la soo sheegay inuu ku fashilmay hogaaminta maamulkaasi isagoona dhexdhigay shacabka Puntland dagaal iyo foodo aan dhamaad lahayn madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa waxa uu khilaaf adag kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkaasi halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa oo isha ku haya markana maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari ku sugnaa beled xawe dhawaan u goosay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xaqiijiyay inay jirto in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka tagay beled xawe isla markaana aaday looq balse sheegay inaysan wax weyn ahayn Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa yiri horta beled xawe looq iyo doolo waxa jooga hal ciidan oo ah ciidan Soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliya oo waajibaadkiisu uu yahay la dagaalanka al-shabaab waxa jira ciidan dhalinyaro oo ka tirsan ciidanka beled xawe oo aaday magaalada looq iyagana waxay u tageen ciidankoodii kale oo joogay looq wax dhib ah oo ka taagan ma jiro mar walbana way dhacdaa in ciidan meel lagu ogaa ay si amar la'aan ah ama sabab la'aan ah khilaaf dhexmara iyaga iyo madaxdooda uga taga xarumahooda Maxamuud Sayid Aadan ayaa intaasi ku daray ma aha wax weyn ma aha sida ay idaacaduhu u dhigayaan meel ay ka baxsadeen iyo cid ay u baxsadeen midna ma jirto warbaahinta ayaa ogay in ciidamada goose ay dhabar jab weyn ku yihiin Jubbaland isla markaana ay gacan ka geysanayaan qorshaha ay dawladda federaalka ku wada qabsanayso gobolka Gedo isla markaana u goosanaysa gacan ku haynta maamulka Jubbaland goosashadan ciidamada ayaa waxa gacan ka geysay saraakiisha Itoobiya oo qayb ka ah qorshaha gobolka Gedo si rasmi ah looga hoosgeynayo dawladda federaalka ee Soomaaliya isla arimaha gobolka Gedo ayaynu ku guda jirnay dhinaca kalena maamulka gobolka Gedo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in guud ahaan ay la wareegeen ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalooyinka gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka Axmed Madoobe ee gobolka Gedo la soo afjaray isla markaana laga la wareegay ciidamada Jubbaland ee ku sugnaa 3 magaalo oo kamid ah gobolka sida Luuq beled xawe iyo
Dolow waxa uu sheegay gudoomiyaha in qorshaha dowladda isugu ballaarinayso gobolka Gedo uu sii socon doono isla markaana dhawaan la soo gabagabeyn doono sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Axmed Madoobe uu dhibaatooyin ka wada gobolka isla markaana uu ka dambeeyay dilal iyo afduubyo loo geystay dad shacab ah dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo ayaa sheegay in lagu raajoogo shakhsiyaad ka tirsan Jubbaland oo baxsada isla markaana maxkamad la soo taagi doono kuwa la hayo iyo kuwa la soo qaban doono ku dhawaad 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada daraawiisha Jubbaland ayaa isu dhiibay shalay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ku sugan degmada Looq ee gobolka Gedo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ku sugan degmada Beled Xawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada ay la soo xiriireen isla markaana ay ku amreen inay tagaan degmada Looq halkaasina lagu soo dhaweeyay dhinaca kalena waxaa magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed ka dhacay kulan weyn oo lagu duceynayay dadkii lagu xasuuqay magaalada Baydhabo xilligii doorashada maamulkaasi ee la xiray Sheekh Muqtaar Rooboow Cali Abu Mansuur boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxad ku taala magaalada Baydhabo waxaana halkaasi loogu qabtay kulan duco ah iyadoo la qabtay 5 neef oo geel ah kulanka uu soo qaban qaabiyay xisbiga amni iyo cadaalad ee uu gudoomiye u yahay Sheekh Muqtaar Rooboow Cali Abu Mansuur oo hadda u xiran dowladda ayaa lagu dalbaday in cadaalad ay helaan qoyskii laga dilay dadkii ka banaan baxay xariga Rooboow ee lagu laayay magaalada Baydhabo dadka isku soo baxay ayaa waxa boorar ay ku qornaayeen erayo lagu duceynayay dadkii Baydhabo lagu dilay sidoo kalena waxay ku baaqeen in la soo daayo Sheekh Muqtaar Rooboow Cali Abu Mansuur ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopian ayaa 13 December sanadkii 2018 waxay magaalada Baydhabo ku laayeen dad fara badan oo banaanbax dhigayay kuwaas oo ka soo horjeeday xariga Muqtaar Rooboow oo kamid ahaa musharaxiinta ugu cadcad doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo ay afduubatay dowladda federaalka ee Soomaaliya goordhow waxaad maqli doontaan saaxiibayaal Maraykanka oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray Abu Cubayda amiirka ururka Al-Shabaab balse markan waxaad ku soo dhawaataan Sacuudiga ayaa mar labaad wajahaya eedeymo ah inay basaasiin ku abuurtay barta ay bulshada ku kulantay ee Twitter-ka si ay u hesho xogo iyo macluumaad ku aadan muhaajiriin badan oo dhalasho ahaan dalkeeda ka soo jeeda basaasiinta lagu eedeynayo Sacuudiga ayaa waxay si toos ah u beegsanayeen dadka sida gaarka uga soo horjeeda dowladda boqortooyada Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Mohammed bin Salman eedeymaha ka dhanka Sacuudiga ayaa waxaa si toos ah ugu soo jeediyay waaxda cadaaladda Maraykanka taas oo si cad ugu eedeysay qaar ka mid ah shaqaalaha hore ugu tirsanaa Twitter-ka inay dadka u basaasaan boqortooyada Sacuudiga basaasiintaasi ayaa mid ka mid ah waxaa soo shacbaxday inuu hore ula kulmay boqorka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman midaas oo sii xoogeysatay tuhunka wada shaqeyneed ee kooxdaasi iyo boqortooyada dhinaca kalena hay'adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da ayaa iyaduna daawacday sawirada tuhmanayaasha Sacuudiyaanka ee lagu eedeynayay inay u basaasayeen boqortooyada Sacuudiga shabakadda FBI-da ayaa Khamiistii waxay soo bandhigtay sawirada iyo faahfaahinta qaar ka mid ah raggaasi lagu eedeynayo basaasnimada waxaana si gaar ah uga dhex muuqday muwaadiniin u dhashay Sacuudiga oo lagu magacaabo Ahmed Al-Mutayri iyo Ali Al-Zubayra xafiiska xeer ilaaliyaha Maraykanka ayaa isaguna waxa uu sidoo kale sheegay in xogaha basaasiintaas ay xadeen ay ka mid ahaayeen ciwaano email lambaro taleefan iyo ciwaano IP kuwaas oo ay lahaayeen dad si aad ay uga soo horjeeda isla markaana dhaleecaya dowladda Sacuudiga xogta la xaday waxa ku jiray ciwaano email lambaro taleefan ah iyo ciwaano IP-ga ah kuwaas oo ay lahaayeen kuwa dhaleecaya dowladda Sacuudiga ayuu yiri xafiiska xeer ilaaliyaha dalka Maraykanka ugu dambeyntiina dowladda Maraykanka ayaa ku gacan saartay guulihii ka dhanka ahaa Maraykanka ee amiirka Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda oo ku sheegtay muuqaal socday 52 daqiiqo oo dhawaan soo duubay taliye ku-xigeenka howlgallada ee taliska Maraykanka ee Africom Brigadier General Michael Castells ayaa sheegay in guulihii uu Abu Cubayda ka sheegtay weerarka ay dagaalyahanada kooxda ku qaadeen saldhigga Balidogla aysan waxba ka jirin balse taa bedelkeeda jawaab weyn laga gaarsiiyay Al-Shabaab Catalans oo warbixin ku qoray shabakadda Military Times ayaa sheegay in weerarkii dhacay 30 September ee lagu wada dilay dhammaan 15 dagaalyahan ee shabaabku ahaa ee soo qaaday kadib markii ay ka hortageen ciidamada Maraykanka ee ilaalada ka ah saldhigga waxay lumiyeen noloshooda hubkooda iyo qalabkooda ayuu yiri Castellanos
saddex baabuur oo walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa qayb ka ahaa weerarka fashilmay. Laba ayaga isqarxiyay inta aysan saldhigga soo gaarin, halna waxaa haleelay gantaal lala beegsaday ayuu yiri. Waxa uu sheegay in waxa kaliya Maraykanku gaaray ay ahayd hal askari oo meyr doorsoomay kadib markii uu ka naxay jugta qaraxa. Tani waa sababta aysan argagixisadu u baahin wax muuqaalo ama sawiro ay ku cadeyn karaan propagandadooda inay khasaare gaarsiiyaan Maraykanka, sababtoo ah ma jiro wax khasaare ayuu yiri Brigadier General Miguel Castellanos. Ururada argagixisada waxay inta badan beenta iyo akhbaaraadka aan saxda ahayn u baahiyaan si ay u xoojiyaan qorshahooda wax burburinta ku dhisan, uguna dhiirigeliyaan dagaalyahanada ay qoranayaan. Si gaar ah tani waxay inta badan dhacdaa marka khasaaraha uu iyagu ku badan yahay una gobolkooda sii dhacaya. Tani waa xaaladda iminka ee Al-Shabaab. Brigadier General Miguel Castellanos ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sii wadi doonto inay been baahiso, balse xaqiiqda dhulka ka jirta ayaa taasi ka duwan. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. Waana mahadsantiin.